السلام عليكم walaalay qaali igu xiran igaga xiran barta youtube-ka waa idin salaamay kulligiin soo dhawaada haddii ay tahay marka kugu horeysa channelkayga aragtid subscribe saaro insha allah waxyaabo badan ka faa'iidi doontaa haddaa hore noola joogtana soo dhawow channelkaagi waaye maanta waxaan sameyn doonaa cafe cornerka sida usoo hagaagsaday iyo meeshaan alaabta ku dhaqo waxyaabaha aa kasoo bedelay insha allah maalin hore IKEA aaday soo alaabo yar aa kasoo iibsaday oo u baahnaa oo list igu qornaayeen markaasaan soo iibsaday waxaana jeclaystay markaan isticmaalayo inaan idila soo wadaago insha allah abaayooyin badan ama dad badan oo igu xiran ayaa waxay mar walba isoo weydiiyaan abaayo guriga qaybtiisa kala aaway gurigan markaa soo degayay ayaa maxaa ku socday dib u hagaajin oo kaleeto wax la dhahayo soo jikadiisa iyo masquuliisa bis ah dhamaysnaayeen iyo dhulka iyo derbiga meesha kore oo yacni uu kore guriga saqaafka inta kala hagaajisa ku socday soo weli inta wixii ayaa tartiib loo hagaajinayaa mana dhamaanin waa idin la soo wadaagayaa yacni maadaama aan meelahan idin soo duubo ma ahana meelahan bis idin soo duubi doono insha allah wax dhamarka aan sameeyo waa idin soo duubi doonaa hadduu ilaahay idmo marka insha allah iisoo duceeya adin kale inuu ilaahay ii fududeeyo inta ka horeysana waa isla sii joogi doonaa walaalay qaali ah marka waa kana horta meeshan before saanay waa ekeed sidaan ay ii tahay before arkosiin alaabaha soo gatay marka maxaa waaye alaabahan waaye bahalkan yariiska oo penkiga ah ama waxa la saarto waxaa kaloo soo gatay buraashkan yarta alaabta lagu dhaqo bahashan wareegsan oo madow bahashan ayadana oo madow oo bahal waxaa lagu talagalay saxmanka in la saarto markay qalalayaan laakiin aniga DIY oo maskaxda ka imaada waaye aniga sidaas kasoo dhigtay insha allah kanoo kale wuxuu ku fiican yahay alaabaha oo steel wire aan lagu dhaqayn oo kale oo kaa xuqmaayo aad ugu fiican yahay inaan lagu dhaqdo tiktok ka arkay dad badan oo amaanayaan ana saas u soo iibsaday insha allah soo marka waa arkaysiin adeertaan maxaa kaloo soo gatay birtaan hadda niitusinoy waaye birta oo loogu talagalay saxamiinta la saarto oo markii la qalajinayo kala saas in loo dhigaa loogu talagalay laakiin ani meeshaas oo hadda ii taalo oo aan soo dhigan doono oo isticmaalaa because wax oo meeshaas yar oo la yar oo sas u la yar oo yacni dhirirka iyo balaca sas u la eg waan waayey marka kana ani soo gatay oo ani maskaxdeeda wixii aan ka helay waayo oo meesheedina ii qaadaysa aad dareemay soo jikada waxay ii taali jirtay hal xabo olivera ah oo dhir ah xabad kale ku soo darsaday oo dhinaca kafeega ii yaalo because oliveraha marna timaha uu isticmaalaa marna mataqaana waxay ii tahay dhirta guriga iiga baxayso marka saana u soo isticmaali doonaa insha allah sidaan camalna u soo dhigtaa rabaa soo waa arkaysiin cafe cornerka ani waxaa jeclahay subax markaa soo kac meesha wax ka cabaa inay iftiimis ay carfeys ay qurux badan tahay so that's why uu soo adeegtay plus adeegan waa iska rabay because meesha marka alaab dhaqo biyo ku daato alaabaha shaambooyinka dhan way qoyar oo meesha iyo hoos yaalo kanna waa kana magaciisa saasa la dhahaa IKEA ka soo gaday waxaan meesha iyo dhan IKEA ka soo gaday gabadhu baahan oo kale IKEA ka hele penkigan oo kale ama miiskan yiriiska ah magaciisa maxaa la dhahaa stolhead fiyoorahan meesha dhirto kale IKEA hadda iska tigiso iska yaala fiyoora caagan rabi laakiin haddana marka caraftiisa isku ururiyo naajarka yacni dabiicigaas dhirtaas waxaasaaba aad ula dhacay soo ayakan waa iska soo qaatay marka waatana hadda meesha alaabtaana ka wada aruurinaa waan soo tirtiraa waa hagaajinaa because ubaxa kaloo ii yaal wuxuu ahaa ubax qalalan marka wuu dhacaa waxoogaa wuu jajabaa jajabka oo meesha kusoo daadaatay inaan ka aruuri doonaa saa ujeediinba waa kaasa ubax yaroo jajabana ku yaalo waan soo aruurinayaa kadibna markii aan soo hagaajiyo oo soo tirtiro alaabadii aan soo iibsaday iyo kuwa hore igu yaala inaan soo saari doonaa insha allah idinkan waa arkaysiin waa kana had sida ujeediin maxaa kusoo bilaabay penkiga ama miiskii yaraa kusoo bilowday waxaa rabaa teemadan alwaaxa haystaa soo alwaax wax ah inaan wada isticmaalaa rabaa kadib waxaa soo saaray everyday alaabta la isticmaalo caan way kuwaan maalin kasta la hortaagaya ma fahantay makiinada kafeega itiya oo biyaha lagu karkarayaa soo dhigtay kabacdina geeskan ayakana maxaan soo dhiganayaa birti saas u dhigto oo saxmankiina lagu qalajisto loogu talagalay aniga saasa kasoo dhigtay ma fahanteen buraashkeyga iyo shaambada asla saartay kadibna shaambada kaleeto oo weelka lagu dhaqaa saartay laba shaambo waay waxaan oo meesha ii yaala midna waa tii alaabta lagu dhaqayo midna waa tan gacmaha mahloor waa idin sheegay 4 xabaa kasoo iibsaday dukaan raqiisiiyey soo marka meesha maxaa ii yaala marka waa kana alaabteedii oo cafe setka ay yaalaan iyo maxaa la dhahaa dhirteeda aan soo samaystay kadibna waxaan soo dhigan doonaa hal shumac oo shumacyaasha carfaayo oo yacni mar hore iigu dambeysay inaan isticmaalo maalmaha guriga cusub soo degaba aan isticmaalin because alaabteeda decoration xataa weliba iska xirxirantahay wax la soo bixiy wax la isticmaalo wax gadaal loo fiiriyo maba lahaanba guriga mar haddaan soo degno alaabtii aan kala dhigdhigana waxaan is dhahay inta la hagaajinayo
balaayo hadda ma jirto ee ha iska sii xareysnaadaan because intii haddana intaan soo bixi aan isticmaala haddana aan dib u xareyn lahaa waxaa ii fiican inaan hal mar aan soo wada baxsan soo wixii jikada ku isticmaalayo iyo meelahaas ma ahane wax kaleeta lama soo baxo intooda kale kartoomaadkoodii ay ku jiraan xataa fareemyadeeda darbiyada kulli way bacaysan yihiin way xirxiran yihiin wax aan furfuray malaa markaa baayooyin badan waxay dhahayaan walaala guriga inta kale meel war walaala guriga inta kale soo duubto miyaa war walaala jikada bis miyaa qabta guriga kale ma walid miyaa lagu dhahay mar kale waxaa la dhahdaa musqushaan bis leema degan tahay meel kale ma deganid miyaa marka meel kale way iska jiraan way iska buuxaan nimca alle dhul ilaahay weynay laakiin dee nimcada alla shaqaa ku socoto soo duceeyana shaqada ilaahay u fududay insha Allah anna waa idin soo wadaagi doonaa meeshaan ani buugagta waxaysiinta isoo dhacdo ma tuuro ilaa mar hore ayaan idigu sheegi jiray YouTube-ka 2021 ilaa 2020ga waan isticmaalaa buugagta xayeysiinta la isoo diro in fiidiyodeeda hore hadda gadaal ugu laabatiin oo decorationka guryaha markaan isticmaalayo waa ku arkaysiin insha Allah buugagta mataqaana dukaamanka oo alaabaha guryaha gadaan oo kale markay isoo diraan ima tuuro like IKEA oo kale buugaga soo dira guriga soo dira miyo dukaan kale buugu guri kusoo diraa Yotex-ka buugu kusoo diraa Hemtex-ka oo kaleeto aan way soo diraan medley ma ka ahay soo ma tuuro marka waxaan sameeyaa waa fiiriya ku qurxoon oo kale waa isku aadistaa meela dhigtaa kuwa kale oo qashinka un baan sii raaciya marka cafe koonahayga waa kana hadeertaan sidaan uu egyahay sida hore uu ka yaroon yahay marka hore boorino ila yar ahaa xoogaa quraankayga ii buuxo shaqadeedan waa qabsanaayay adinkan video idin soo duubay si ama taqaana u aragtiin wax cusub soo sameeyay aduu ilaahay idmo insha Allah walaalahay abaayooyinka badan iyo intaqaanadka badan oo igu xiran oo mar walba isoo qoraan commentash qurux badan waa ku mahadsantihiin commentiyadiina qurux badan ay isoo qortiin ajir iyo xasanaad la soo koobi kara ilaahay idinka siiyo video waxaa jira ayaan hore aan soo gali oo ahay ilmaha hadalka soo daaha iyo sida lagu bari karo aniga process ay socday soo waa idin soo wadaagi doonaa haduu ilaahay uu idmo siyaabaha ugu fudud ku bari kartid waxyaabaha u baahan tahay in adiga xataa way aan taqaanid iyo mataqaana waxyaabaha caawin aad ka heli kartid meesha aad joogtid marka waxaas oo dhan waa idin soo wadaagi doonaa haduu ilaahay nafta ii dhaafo wax walba waan jeclahay in idin soo wadaago laakiin waqtiga kaliya ayaa mataqaana igu dhoorey ma la dhihi karaa waqtiga kaliya igu adkeeyay sababtoo ah qof shaqeeyo oo ilmo iska haysto dhinac wax ka barto dhinac ilmo wax ka baraayo in social media active ka ah oo mataqaana hadii YouTube wax soo gelinin oo kaleeto ama TikTok aan soo gelin ugu yaraan Snapchat ka aan soo geliyaa ma yaro intaas oo platform dadkaaga xiran yihiin inaad soo gelisid dadkii inaa noo shahayba inaad tustid like adigaa baray soo ma ahayna mar walba soo post garaysid soo marka xaaladda ma fududo waan isku dayaa sida ugu wanaagsan wax idin kugu soo gali karo mar walba waan jeclana mar walba idin soo galiyo especially YouTube waa meesha ugu jeclana wax soo galiyo mar walba waa dhahay YouTube waa meesha social media ka bilaabay anigoo meel kaleeto aan waliga waxba soo gelinaa YouTube ko jug ku soo dhahay marka YouTube waxaa waaye meesha ugu jeclahay number 1 platform ba ugu jeclaa platformyaasha aan isticmaalo marka day walaalay YouTube idinka caajisin laakiin waqtigu baa xoogaa ii yar deeriyay marar badan waxyaabo iskaga mashquulay laakiin hadda insha Allah inaan active ku soo laabto oo videoyadin idin soo celiyo ayaan rajeynayaa insha Allah idinkan active iska dhiga subscribe saara channelka like saara commentiyada dee waqas commentayaal qurux badan waa isoo qortiin sideen u soo wada ma fahantay walaalihiin kale lana sii wadaaga waan idin salaamaya